بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وقتكنا هو وقت الدم ودي طبعا كيف بينما مرساه warka badan aan halkan ka sheegaynaa mana mala yahuud wax badan yeeli maayo kelmadda la igu qoray waxay ku saabsan tahay asbaab dacfi almuslimiin waxyaabaha keenay muslimka tamar darradiisa maanta markaynu eegno muslim oo dhan haddaynu eegno iyo haddaynu carab oo qura eegno carabi waa 300 milyan yuhuudda dunida ku noolina waa 15 milyan waxa Israa'iil joogiya waxa ka maqan marka la isku daro macnaheedu waxa weeyaan boqolkii carabeed ba 5 yuhuudeed ba ku beegmaya waa 5% bay ka yihiin haddii muslim weyne loo eegana muslimku tirooyinka ugu yar ay sheegaan haddaynu qaadano oo idhaahno waa bilyan iyo badh waa 1% bay yuhuudi markaa ka tahay boqolkii muslimaba hal baa ku beegmaya reer banu Israa'iil idan 15 milyan bay ka cabanayaan 2 bilyan oo bini aadam waa waxa cajiiba 2 bilyan oo bini aadam ayaa 15 milyan ka cabanaya waa qadiyad runtii aad u weyn inkastoo cali diiriye meel oran jiray ninkii Soomaaliyeed abwaanka ahaa toddobaatanaadkii dagaaladii markay dhaceen wuxuu lahaa Israa'iil ma boodeen bari dhexe intuu dego birta kuma afaysteen waa boqol yahuudi rag baa biirinayo baarka u fidhaayeen barqa laguma gaadhin bula marka wuxuu tilmaamay in ay 15 kana haydeen dad badan oo ka dambeeya inay jiraan si kastaba ha noqoto taariikhda islaamiga markaanu dib ugu noqono maaha markii koowaad ee muslimiintu ay dacfi dareemaan haddaynu eegno cahdigii nabiga calayhi salaatu wasalaam waqti laga xoog badnaa baa jiray haddana waqti yaroo kooban bay labadii dowladood ee dunida ugu xooga badnaa dhowr iyo 10 dagaal bay la galeen baan filayaa ay kaga takhalluseen taariikhii ka dambeeyay haddaynu eegnana muslimiintu waqtiyo badan oo dacfi ay dareemeen baa jira waxaa ka mid ah waqtigii Mongolian isku qabsadeen caalamul islaami intiisa ugu badan waxaa ka mid ah waqtigii ayaama Andalus markii laga soo saaray Spain iyo Portuguese iyo dhulkaasi ilaa Faransiiska dacalkiisa ama Paris dacalkeeda aan idhaahdo macrakatul bilaad iyo muslimiintu dhulkii ay qabsadeen dib looga soo wada saaray waxaa ka mid ah Bayt al-Maqdiska laftiisa waqtigii ay qabsadeen ama Sham qaybo badan oo ka mid ay qabsadeen oo degeen Crusaderskii ama Kristankii Yurub ka soo duulimaad tagay waxaasoo dhan markaaynu isku soo darro taariikhda ugu kuma aha in ama Bayt al-Maqdis la qabsado ama dhul muslimiin la qabsado ama muslim la jabiyo laakiin su'aasha isweydiinta leh waxa weeyaan mar kasta oo la qabsanayay maxay ku sugnaayeen mar kasta oo muslimiintu ay jabeen xaalkoodu sidoo ahaa markasta ay guuleysanayeen maxay ku guuleysanayeen qadiyada u baahan in dib taariikhda looga baaro ama dib loo eego waa kaasi inta badan marka taariikhda laga warramayo waxna waxay ku tilmaamaan inay yihiin asbaab daakhiliya bulshada dhexdeeda wax ka jira oo jabku ka yimi waxna waxay ku tilmaamaan asbaab khaarijiya dabadda wax kaaga yimi laakiin waxay yidhaahdaan inta ugu badan leh أسباب خارجية لا شيء والنتائج معها سبب حقيقية وأنا السيدة أنت بدن شرح سورة آل عمران قصة أحد مركا إلهي وكور رميه لو ما علينين خالد با حريفها ما دقاليها ما قدلوا الذين هلا ما والله دكتور وحصل لو ما علينين يدا يشرته لكن وحلت المامي وحنوا النتائج أصل كوين وها ضعفي مسلم ككل عيقودهيس ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين آيات تربضا
ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku sharxaya asbaabtii daakhiliga ahayd ee muslimka ku dhacday awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum midlayha qultum anna haada qul huwa min cindi anfusikum ina allaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay wuxuu tilmaamayaa sababaha xaqiiqiga ee jabka keena inay yihiin sababo daakhiliya walidalik qaacida caama baa qur-aanka ku taalloo tilmaamaysa in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim duulla waxay ku sugan yihiin hadday badhaadho ku jiraan iyo hadday dhibahaysataba lagama bedelo inay iyagu bedelaan mooyaane cama fi lanfus waxa naftooda ku jira inay wax ka bedelaan mooyaane waxaan odhan karnaa markaa sababta oo dhan waa la ijmaalin karaa hal midoo qura lagu tilmaami karaa halkaa mida waa la tafsiilin karaa waa la balballaadhin karaa oo waxyaabaha ay sheegayso midkaa guud waa la tafsiilin karaa waa la sheegi karaa sababtu waa hal mida marka hore waa ama diinka tegis diintoo la ihmaaliyo diintoo jaahil laga noqdo diintoo aan lagaga dhaqmin في الأمور الشخصية أما في الأمور الاجتماعية والسياسية مدة دونتان نقطة ويا إلهي بالقرآن كوحي نوغش جاي بلن وقاضي هدي دين تسيدا يتحي لو رقمه ما هسيدا دقو فهم سنت وسيدا يضطي دينهم الذي ارتضى سيدا الله ورالي وجاي هدي لو رقمه إلهي بلن قاضي نقول له ليه إلهي القرآن كوحي نوغش جاي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وبلنا له إلهنا وحلي وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون إلهي وحب الله قاضي وضدك مسلمين تاو يبوهي هدي لغا هلو إيمان كي لو باهنا لغا هلا عمل ونكسن عمل كي أمدي السيئة صالحة لو باهنا إن دول كان إلهي سبحانه وتعالى يغا خليفة قد غيو سيدي دادك يغا كوهر رييبا خليفة لوغا قد غي إيين إلهي دين تو دا مكان سينا يو دينهم الذي ارتضى لهم دينتي الله رالي ونقضي ما هالدينتن أنه نو فسر كذا وقاضناي مسبحية سجايدنا يتهاي وهذا وردك بتصطو مساجد كاد قشين تقول إيش نسمع وردك هي مسبحة هي صلاة هي كوكاني ووحلو بهاي هي لكن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين سيدا وجد إيمانكو كيلو باهنا هدو نقضه ومدى مسلمين تا إيمانك هي ستا كيلو فراي هدو نقضه وإلهي وحلي ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين قرب إلهي تلمامي أفكنك لا إلهي الرسول بانو رمينو وحبانو أطيعنا لكن كتشيسن يدين تو شهدين إياه warkuwaasi mu'min ma haba ilaahay ku tilmaama idan hadduu iimaanku kii dhabtaa uu yahay waxa ka dhasha camal saalixa oo isna camalkii dhabta ee shareecadu ay sheegaysaya marka waxaynu odhan karnaa mushkiladeennoo dhamme haddaynu duuduubno tafaasiishu ha dambayso haddaynu duuduubno waa hal mid ah waa diin la'aan waa dacfi diinteenna ku jira وكل الآن دينتين نكون رقم ويني ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبو داود يا إمام أحمد بورين أيام بمجموع طرق علماء لا صحيح إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم وحنا بقول عليه الصلاة والسلام هذا عينة كل قنتان عينة هو نوع من الربا وأن ربا الله حيل هذا يستي أنك ترى هذا قاري جيبي أو $1 يقصي دبتنا يجي يسو أو سداد بقول يسي
markaa meeshu wax weeyaan un 800 waad qaadatay kunna waa lagaa rabaa 800 oo 200 oo ribi saarantay un weeyaan haddaa ciinada ku dhaqantaan buu nebigu tilmaamaya oo lo'da dabada qabsataan oo beeraha ku dhegtaan oo ilaahay jihaadkiisa ka tagtaan ilaahay wuxuu idinku sallid ka kacaynin ilaa iyo goorma xataa tarjicu ilaa diinikum ilaahay aad diintiina u soo noqotaan baa uu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam idan waxaan leenahay aslu ducf aw idacf muslimiinta haya marka si duuduuba loo sheego waa diin xumo marka si duuduuba loo sheego waa diin xumo diin xumadaasi oo tilmaamaysa inaan kitaabka rabbi iyo sunnadii nebigu calayhi salaatu wasalaam siday sheegayeen loogu dhaqmin bidaliil kuwii ku dhaqmay ballankan way heleen yaboohaynu nidhi ilaahay baa yaboohay kuwii ku dhaqmay marnaba may waayin fi taariikh ama cahadu saxaaba ha noqoto ama cuhuudii ka dambaysa ha noqotee kuwii ku dhaqmi waayeyna waa dulloobeen haddaynu isnidhaahno wakhtigu waa kooban yahee 2-3 qodob tilmaamo bitafsiila kow waxaynu leenahay waxyaabaha caalamulislaami ama umma alislaamiya haysta waxaa ka mid ah cadamu alqiyaada alraashida aw ghiyaab alimaam alcaalim alcaadil waxaa maqan hoggaankii qumanaa caalamulislaami waa dad taliska hayaa inta badan waa dad ama ducafo ah ama diinlaawayaal ah ama aan mabda'aba rumaysanayn ama fahamkoodu uu gaaban yahay oo liito ama aragtiday diinta ka qabanaanay aragti qurux le ahayn saa daraaddeed bay waxay ku dhaqmayaan uun inay dadka caburiyaan iyo inay nafta isugu keenaan iyo inay wax dulmiyaan iyo inay xorriyadda ka qaadaan iyo inay karaamo dilaan iyo inay baabi'iyaan alqiyam alinsaaniya waxay ku tilmaamaan qofka bini aadamka bini aadamnimadiisa ama inay dadka addoonsadaan kuwa ugu ladan ee la ammaana waa kuwa u ogolaado dadku waxay cunaan inay helaan markuu cunnada ogolaado ayaa la ammaanaa la yidhaahdaa ninkaas waa nin fiican oo waddankiisa beriskaa dadku cunaa idan markaynu isku darro nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu tilmaamayay xadiidka uu ku tilmaamayo isbeddelka siyaasiga ee ku dhici doona qiyaadada muslimiinta waxa uu ku tilmaamay takuunu nubuwa fiikum maa shaa allahu an takuun nebinima dhexdiinna joogayso qiyaadada ambiya idiin haynaysa waa nebiga calayhi salaatu wasalaam intii alla ka doono dabeetana ilaahay baa rafcin doona waxaa ku xigi doona buu nebigu leeyahy uma takuunu khilaafa calaa minhaaji nubuwa maamul waddadii nebiga haya ayaa ku xigi doona dabeetana intii alla doonaabay ahaan doontaa kadibna ilaahay baa rafcin doona waxaa ku xigi doona buu nebigu tilmaamayaa boqortooyo caada iyo boqortooyo jabariya kuwa dadka qaniinayo laynayo tumayo cadaadinayo dictatorisa baa ku xigi doona buu nebigu tilmaamaya kuwaana ilaahay baa rafcin doona intii alla doonay joogi doona way rafcismi doonaan waxaa ku xigi doona buu nebigu yidhi oo soo noqon doona khilaafa calaa minhaaji nubuwa mar dambe oo dadku uu soo noqdo khilaafo dariiqii nebiga haysata uma sakat halkaa markuu marayay nebigu u aamusay culamaa'i taariikh waxay yidhaahdaan taariikhda muslimiinta qayb ka mida buu nebigu tilmaamay qaybna wuu ka aamusay qaybta uu ka aamusay ilaahay baa og dowraadka dambe siday u socon doonaan dowladda tani laakiin saa afartaa bay isugu xigaysaa afartani miyayna soo wada dhaafeen mise badh baa hadhsan raawiga maalan xadiidka warinaya xabiib xadiidka waxaa kale warinaya 2 saxaabi saxaabi iyadoo meel la fadhiyo oo uu fadhiyo xudayfata bnulyamaan oo uu fadhiyo bashiir ibnu saciid nucmaan ibnu bashiir abihi oo nucmaan ibnu bashiir joogo ayaa abi thaclab alkhushani weydiinayaayoo wuxuu odhanayaa war bashiirow horta xadiidkii nebiga ma haysaa ee khilaafada ka warramayay ama umarada ka warramayay dabeetana muu jeclaan jirin baa la yidhahdaa inuu axaadiis badan sheego bashiir nucmaan ibnu bashiir aabihii xudayfa ibnulyamaan oo fadhiyaa yidhi anaaga og anaa sheegaya dabeetana xadiidkan aynu akhriyayna buu sheegay xabiib oo aan ninka nucmaan ibnu bashiir xadiidka ka warinaya isagu wuxuu ku fasiray
خلاف الراشدة مركي دماتي عهد الأموي إنه عضوض كان يجبري كان يبشري خلافة على منهاج النبوة أين ينتهي عهد عمر بن عبد العزيز وحي كدم بينا سكت كاين يكوتشران ثم سكت وسوء فسري راوي حديث كاسي علماء كلا فسر كلا صارتان واجرا مهما تكن يعني الدورات كم دون دورات كالتاريخ هي مامل كمسلمين تمرد دون أبو نبي الشاقي دورات كاسي وحا كم موضة إنه تشابه يسوع مسلمين تاي هوسو سيدا عيسو وحا كلو كم موضة إنه يديبو صانو قونيسو marka ay minhaaj nubuwa raacdana inay guulaysanayso qiyaadadu ay ka noqoto marka ay ka weecato ee mulugta xuduudka iyo jabariga ay joogtana dictatorshipka iyo kuwa ay joogtana waqtiga la lumaya inay tahay baa xadiisku tilmaamaya haddaynu si kale u tilmaamno labada qodob aynu sheegnay diinta guud ahaan iyo qiyaadada raashidka xadiis isku tilmaamaya baa jira oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay يا معشر المهاجرين 5 خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن مهاجرين يبو نبوت المامي شن شيء أو هدي أي دعان إلهي بان كم بجنجل يا إن أنا جوكو كوالغوي تحما أيضا نقنني وحكرت ما يتلمام يا نبي فاحشة يزنا ده يحموه هذا فافان وأي معلن نقضان ده كوا guriyo loo kareystay oo calaam laga taagay oo caalam islaami qaybo badan oo kamid ah deelisan baabay dawladdu u jartay oo daaray leeyihiin iyo guriyo iyo meelo hargeysana deyntaan la rogay fucking street-ka waa garanaysaa maxaad meel kale durugsan ka tagi doontaa ala kulli xaal hadday zinadu faafto oo haddana ay muclan noqoto wax caan ay soo baxdo waxuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam duulka waxa lagu itixaamaa xanuuna iyo bukaana aan ummadii hore hayn jirin ummadii miisaanka iyo mikyaalka baac mushtarka khiyaamadiisa ma bilowdo ilaa iyo abaar baa lagu qabtaa iyo sultaan jaa'ira madax xadgudubta tijaarada ama miisaanka oo la qalda ha noqoto ama shayga waxa uu ka samaysan yahay oo la soo qalda ha noqoto maantana waa ogtiin ama daawo ha noqoto ama raashin ha noqoto ilaa xad baa la gaadhsiiyaa dadka badh ay idhaahdaan haddaad kintaalkan kontonka kiilo ku qorantay miisaanto dhowr iyo 40 unbaa soo baxaya si kastaba ha noqotee hadday khiyaamadaasi badatana waxaa la tilmaamayaa in abaaruhu badan doonaan madax daalimiinna dadka lagu itixaami doono hadday zakada la manciyo roobkaa yaraan doona buu nabigu tilmaamayaa roobna maba soo de'een haddii aan bahaa'imta iyo dadka waxaa baahanay aanay jirin dad ma buriyaan buu nabigu leeyahay cahdiga alle iyo cahdii rasuulka ilaa iyo waxa ilaahay ku itixaamaa cadow qaata wixii gacantooda ku jiray hadday dadku ilaahay ballankiisa iyo ballankii rasuulka buriyaan kitaabkii sunnada hadday dhinac maraan ilaahay wuxuu ku itixaamaa sallallahu calayhim caduwan cadow baa ilaahay ku itixaamaa wixii gacantooda ku jiray wax ka mida ka qaada أئمدود مدحدود إلهي كتاب كيسا كما حكمان أو يتخير فيما أنزل الله خير كمرات سدان تخير وطلب الخير خير كمرات ديان وحي ألا سودجي إلا جعل الله بأسهم بينهم إلا يجا الله اسكو اتحامه يجا استله حديث كان ابن ماجه ورينا يلفظ كان آخرية وأنا صحيح لغير بيع علماء ليه إذا حديث كان لما شيء بوت المامية جوانب دين تكمل وحي هدي لقى تقوى صوب حيا هي قيادة الظالم كاهي مركا اعتماده وحصوب حيا لما أنت وحي المامية مركا أصل ضعف مسلمين تيجي مسائل كان كوشرته مسألة الصدق هذا أنت المامية ما دام ربينا صوك وبوح وياه ومسألة التفرق والاختلاف والتفكك وعدم جمع الكلمة ومسألة ummaddu inay burburto oo kala tagto oo iskhilaafto oo isdisho oo kala dheeraato sababo badan baana keena mararka qaarkood mushkilo siyaasi iyo fi'ayari maslaxadooda ay u aragto inay sidaa taa keena mararka qaarkood faham kooban oo diineed baa keena oo maanta waxaad arkaysaa caalamul islaami dul wadaada sheeganayo iyagun la kala hayo sababtuna waxa weeyaan mid waliba wuxuu soo haystaa diinta inuu isagu wakiil ka yahay fasirkiisuna inuu yahay
كي ربي الله حق ربي كيمي أنت كلنا إني باطل كسوغان تهي iyana waa sabab ka mid ah asbaabta ikhtilaaf keentay marka siyaasiyiintu waa mukhtalifiin wadaadda badani waa mukhtalifiin caamadu waa mukhtalifiin qabaa'ilku waa mukhtalifiin dawladu waa mukhtalifiin wax wada socdaaba waa yaryiin wax wada socdaaba waa yaryiin waxaad moodaaba in sifadii yuhuudda lagu sifeynay iyaga dhab ku tahay ilaahay yuhuudda markuu sifeynay muxuu yidhi ba'suhum baynahum shadiid taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shata iyaga colaadood iyo dhibta dhex taalla waa adag tahay waxaad moodaysaa dad wada jira baa ilaahay yidhi laakiin qalbiyadooda way sii kala jeedaan falastiinta imika la hadal hayo dee muslim baa ooda u rogay oo yidhi tuma annana waa idiin ilaalinaynaye 15 sannadood ba hadda la leeyahay wax barisma geli wax la cunaa laga ilaalinaya daa hub iyo waxaa ka kaalay bini aadam la yidhi annagaa idiin oodayna idinkuna garaaca dee kuwan oodaya waa muslimiin waa dad iyo dalal islaamiya inay gargaarba siiyaan ka kaalay in la yidhahdo war haddaa wax iska celisaan iska celiya haddii kalena ha laydinku maado war baabay noqon lahayd ee inaad tidhaahdo anna waa kuu qabanaya adna tun anaa kuu xejinaya iyo dhaqdhaqaaqina adiguna tun dacfigu halkaasu ka maraya muxuu ugu qabanayaa ma jacayl buu yuhuudda u qaba may u baqayaa adiga abu soo gaadhiya kan ku hayka una tuma buu taagay yani inta badan waa baqay waxaan leenahay marka furqadu asalku wuxuu ahaa muslimku tara almu'miniina ama mathalu almu'miniina riwaayada bukhaariya muslim waxaad arkaysaa mu'miniinta ama tusaalahoodu wuxuu yahay marka la eego naxariistooda iyo isjacaylkooda iyo iscaawintooda iyo isu dabacooda sidii jidh qura oo haddii cudwi xubin ka mida jidhku ay xanuunsato jidhka inta kale uu soo jeed iyo xanuun ugu soo jeedo muslimku miyuu sidaa weegiyay maanta maya mid waliba liwaxdo buu fakeraya keligii bale guriga kugu xiga in lagu dhimanayo in lagu nooliyey ma ogid guriga kugu xiga in gaajo loogu baktinayo in lagu nool yahay inaad ogeyn bay u badan tahay ilaahina qur-aanka wuxuu ku tilmaamay وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ورى الله يا الرسول كيسا داع وارهم مرمنها اسقبننا ييدا ضعيف بالدا الفشل في اللغة هو الضعف وضعيف يسان والليدن يسان با إلهي ليه وتذهب ريحكم مقعين يد ولا النمدين يد النمدين يشرفتين واتقسا واصبروا إن الله مع الصابرين والصورتقل وحوغا حق شيء دبين اي دحدينا كجري كرتو لكن waxa la yiri xal u raadiyo wasbiru in allaha ma'a sabirin kala guuro kala yaaclayna ma oranine wa wasbiru in allaha ma'a sabirin inaynu xal raadino oo sabirna bay ahay nabiguna alayhi salatu wasalaam xadiiska bukhari wuxuu leeyahay la takhtalifu fa in man kana qablakum ikhtalafu fahalaku warho ya iskhilaafina warku idinka horeeyay way iskhilaafeen dabeetana way halaagsameen baa nabigu tilmaamaya waxay leenahay markaa sababtu sabab khaarijiya maaha maraykan baa caawinaya iyo maraykan keligii baa afghanistan waxba yeeli waayay isagoo 45 ciidana wata 45 dawladood oo kristan u watay qaar muslimiin mooyay dhariyaaya waxay meedhayeen iyana waa la socdeen waa ku jireen qaar dawladaha islaamiga kamid ah 150 geeyay 150 askari waxay qabanayaan garan maayo waxaan uga dan leeyahay maca maraykan ha ku jiro maca kuwa ka sii dambeeya ha ku jiro ibliisna ha ku jiro maraykan daaye haddii muslimku muslim yahay may dhacdeen waxa hadda dhacaya doo muslimku muslim dhaba yahay waxa dhacaya ma dhaceen walidalik adibkii masriga ayaa alcaqad loo odhan jiray ayaa ixda kutubihi wuxuu leeyahay maqaal word la yidhaahdo كثيرا ما يكون الباطل أهلا للهزيمة ولكنه لا يجد من هو أهل للانتصار عليه بيري إن بدن بالله أركابو يري باطلك إنه مدن يهي أموي يهي وح لتشبين كره وحن بولا يهي بولا عدي مدنيدين يقول يسته يعني باطل حكم لها بولا وح اللواي عدي يضم مدنيد إن يقول يسن كرتا ما يشك بحضي قضبك أفراد عن تلمامة يا وحويان يو نبغو شاقا عليه الصلاة والسلام
الوهم حب الدنيا وكراهية الموت ضدك النظرات ودين يدونك كسر قوبان لكن شيخ هذا كهذا يوم مقاصد جهادكم دين كم شهادة يجن الرادين يمال خلق وأنا هين وإنه أنت ندونك حسابتك وإن أنا هين لكن ضدك مركا أركتيدو دو مصلحة شخصية يا دونك محان ديف يا أيو غيرك عرر يحول الرادين أي نقطة وكي حديث النبي قلت المام يوشك الأمم وأن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها وحيونا وذيبون النبي عليه الصلاة والسلام إن أمضوه يسقوكين يردان سيدا قوة صبت له عسومة وضاله أي يسقو يردان حيرضة إني وداقان سيدا عنا دلو وداقو إن ليدين وداقو والتعبير رنتي هذا عجيبة بني آدم النور لأنه وصف فيها عنا اللي وداقي إني نقضان نبي محمد وحكوت المامية sida cunada in la idin wadaago xeedhada la isugu yeedho in la isugu ka yeedho baa dhici doonta saxaabadii markay ka yaabeen waxay yiraahdeen oo ma yaraan baa ilaahay rasuulkiisiyo waxay sidaahdeen in mala inta dadka ka yaraataan ayuu badunidu idin boobi doonta wuxuu nabigu ku yiri balantum yawmaydin kathiir may maalinta waa badantii laakiin daad xor baatiin baa leeyay xun badan daadku markuu kaxeeyo dusha ka saaran taas baatiin xun badu وزن ماله ميسان ماله اتجاهه مصعته بيو كل بصورك كلا ما نبيو سبيسنا شكل جدو بيو هاد بسيدو يهاي لانكستو بيا سوق شاقي بيلا حدا يعني وحقيقة كفر دي ماها نوع عاصو كلا نقول يسابون بيقولي ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يغضفن في قلوبكم الوهن قلبي يدي إننا nimanka gaaleed qalbigoodana inay idin ka cabsadaan ba waa laga saari doonaa dee muslimka ma cidunida ka cabsataa miga jirta waxa lagu arki doonaa biyo la cabayo kale inaad la mid tahay adiga qalbigaagana wahni baa lagu tuuri waxay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisa iyo wahnigooni waa maxay af carabi way yaqaaneen laakiin waxay garan lahaayeen waxaan ummad dhan fadhiisanaya wuxuu yahay ilaahay rasuulkiisa iyo wahnigu waa maxay bay yidhaahdeen nabigu wuxuu ku yidhi xubbu dunya wa karaahiyatu lmowt وأدون جعيل يجري كعرب نجري كعربي قول هلالي ما يدي قول وعكسك يسد مشاكل يدي بيو هذا عبسيدو كوجاشو وحب ما جيران ما دام قضب بدن بين فسري كرنا لكن وحن ربينا اسكا سو كوبو مسلم كومانت انتي سبدري واصنتي qaar baa isku dayay inay madaxa la soo baxaan oo bidaartu muuqata laakiin iyana wali kuma tiisumay taagin waxaan leenahay tiro ma tiro yara ma dhul yara bale dhul istiraatiijiya waxay yidhaahdaan badaha dunida inta kantaroosha ayaa dunida ka talisa ما اللي حبي شيء كان كنال مسشان كنال بدوني ده كويالا ميد مويانا أنت كلا عالم الإسلامي بقى عندي سكوتشرا هرمز يسويسي يو كوانا وهيستا تركي جاي مركلا سكوت درا بنا ما أقول عنك عنده ده كوتشري واحد دوني ده كنال سكوتشرا شدال كدوني ده أنت يشوفان بويالا ترى ده اللي يرد دوني ده أقول بدن أنت يشوفان بيشوفته ده ده وكان هو يحرف ده أنا واحد رالي ده كوتشرا سما ودريد مسلم كورنا بقول الله يرضى لكن وحنين شيء نامقان وحنين شيء نامقان قيادة الراشد كهيدا كان هو جامل لهيد مبدئي حقيقي هاي خيالي هيدا ومدن قادن لهيد من مدى نبتا هيدا ومدى مسلمين تسيئون يقابون يوم مدوبي كاري لهاي آخره يجن الرادين تنبتا هيدا يكبح لهايين من إذا سكية وحن أنشرين للرادين أيوه وحن نورن كرناهم ما دام وقت الدنبية هي هذا القناة ربينا سوقه تفصيل كواتر بدن كرناه لكن وحاسو تفصيله وحن كوبية من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا إنه الدين تقرنه وإنه قرن الناس إنه يحسق علينا يسينه حمام الله يسينه علمه وبرنه يسينه ضيع حتى ما لها كفوق آدنه وقرننا لكن وحكاه الرئيسة إنه ضد قلنا مسلمة هذه تعلو وقوليستو وقوليساننا
waxaan cilmaaniyiintu inoo sheegtay kambaadh dhiman iyo kambaadh dhiman war waxaan oo dhami diintay ku jiraan taarikhyahanada qaar baa waxay idhaahdaan persia iyo romaniski waxay idhaahdaan xawaalay 1000 sannadood in ku dhadhow bay isdilayeen qaar baa waxay sheegaan ilaa 700 oo dagaal inay galeen may isriixin waxay idhahdaan muslimiintu qolana 15 bay la galeen qolana 9 bay la galeen 24 dagaal bay taariikhda dunida kaga saareen ragga ka saaraya waa raggii hawdka ka yimi ee aan dawlad hore aqoonin ee carabi maxay ku faani jirtay quraysh waxay odhan jirtay waxaanu nahay qabiila luqax luqax waxa weeyaan dadaan weligoodba loo talin dad madax bannaan baanu ahaynoo dhulka iskaga nool marka waxaan ku soo koobayaa saxaaba waxay xadaarad iyo taariikh iyo ummad ku sameeyeen oo ka gedisan umamku bay dhahaan 100 sano ay dhismaan laakiin tii saxaabadu bay dhahdaan aqsar waqti dunida wax la dhiseen waqtigii ugu koobnaa waayo dadkii ugu qumanaya diintan qaatay ahay kuwii ka dambeeyay hadba jiilkii inuun roonaadee qaatay waxbay iska dhiciyeen weligoodna lama gumaysanin jiilkii ka tegayna ama mogool ha jeedho ama crusades ha jeedhaan ama kuwan maanta cid haysataba aan la garanayn ee dunida ku wada dullaysan ha ahaadaan waxoo dhan markaad isku darto waa dacfi gudaheenna ka jira cadow baa xoog batay taariikhda marnaba war may ahayn mar walba dunida ninka is haysaan dee wuu fakerayo wuu tashanayay laakiin dadka maanta intay ooyaan cadaaladda ka raadinaya united nation ee ka raadinaya cadaaladda yurub ee ka raadinaya ninka is hayeen inuu cadaalad sameeyo ama inuu naxariisto sidaa marnaba guul laguma helo inteennan caawa halkan fadhidana ilaahun baan gaalka inagu itixaamin daynaba caawa maynan hooyanin ilaa tabarkala maayne mashaakilku wuxuu yahay war hoy diinta ha loo noqdo آخر يا دنبا ولا قولي سنيا والسلام عليكم ورحمة الله